foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celino rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol koow waa idiin sheegay danta shakhsiga inaga guuro oo loo guuro dan guud danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idin keeno saan idin badan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fuliyay wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiirada waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midin fuliyay ballantaas kuwa ku xigana aan idin sheego aan idin fulinay ammaanada koow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday ammaanada ummadda Soomaaliyeed waa kala shaqsi waa la kala fogaaday waxaa la isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay idinkugu hayno oo aan isku keen hayno oo wada jir iyo midnimada kugu shaqayno wixii aad noo dhiibateenna si fiican idinkugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa aysan jirin shakhsi keligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay uu idin soo wada gaaro macquul ah mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa waxaan idin sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha Allah waxaa kaloo idin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadnay oo aan daar u marnay xasiloonida magaaladan yaan daar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo sharafkeedii inay soo noqoto inay la tartanto Kenya Nairobi inay la tartanto Addis Ababa inay la tartanto caasimadaha adduunka ma kula tartami karno iyadoo borono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoryo culus saaran yihiin oo shacabka lagu leenayo kulama tartami karno haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dawladda aad kala shaqaysaan cadaaladda aad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkaani waa dal khayraad badan